أيه مهد إما كان كاقبنا يا سوق هذا ديكو صدر سطي وايد تمانا هاي محنك كقبت تما هذا كما هي ولا لا قف صلى ما سو انفيت كراي ولا سنبايا ما يقول السنبا مرر بدن كسو قبت كسو نقاي مكان نعم صاحب ما برتصل من قديس اساس فهمت قبض ده قبضته هلو يس وكوغوليسني هاي ها قاين السلام horta labadiina cayd iyo waxa ba sheegaysiin dadkan caay ay waa maxay walaal Soomaalida in akhlaaq daran ba ku jirtay inta akhlaaq daran Ilaahay ha caafiyo walaal inteena wanaagsan Ilaahay ha inoo caafiyo soo dhaw adiga waan dhawahay hay maxaad jeceshay inaad nagala qayb qaadataan baan mawduucaagu muxuu yahay midna ugu daray waliba qofkii ugu horeeyay leefna nala soo gala qofkii ugu horeeyay leef ku casuunaa tahay nolosha qof leef kuma nacasuun hada waan ka nasiib badanaa dadka kale haye maxaa la dhahay waxayna weydiinaa adinka leefka marar badan soo gasheen dhowr mar waa ina soo codsaday haye ma aanan aqbalin leef sorry walaalo waana yar garaneynay ma waliba aanu ma garanay saaxiibada hibaaq baad haysaa oo hawsha qaabilsan maxaad haysaa walaalo warkaaga soo daa maanta boodna haysaa ها سيد الله أقبلنا أجرويسين أو ملينا ها ما تبغى ندردارنا وحنا نري قف وينود إن معشي إن مجيء هبين دو تلاندو ستار بان كبدي موقت عرضي دب وما صانقه ها هذيك يا واحد يقول ترى ما 8 مليون بات صاري قتم قرن سلاندو أنا وانسكت دين وأبو يقول ده أنا حيستب بقول كل مليون بيقول ما كان قبح 8 مليون أنا وأكو حناقه وأنا قبح حيوان لفت ما كان استغفر الله ما قاعد يست وضبع هذا يا ما قاعد يست وضبع هذا العكتاسي مليونير بان كنا مليونير ولا حق اللادو كنا حق كلا لكن أنا نكون بدناين حق كلا هباق waxaan rabaa heesti jaceelka ayadoo oo ay qaaday dhowr mar aad dhageystay maanta ayadoo bila music ii qaado waa teewlaalo dalbo daawo heestaada tee ugu jeceshahay heestaas tee ugu jeceshahay ها heestaas inay ii qaadaan rabaa aanu ma xif waa dareenkaysu keena laba يودو أبيد كود كلا قادن تدلو الكيبو دودينا كما مارمو ورقيو دربانكينا حنتو كدراراي وليجيني دباجوغا قلبي غيرتني دقي إنا يلو أمدايو دورشدا هنكي قالي إذن كان دقنينتين ديدي مايو تلادينا هاي واو أدنى محسنتي وانا لسه عدي قوم بيسوق قراعي اصحاب صاحبنا هو فيسبوك فريندز ناي سلامه يا halka soo jeeda احمد علي jaamac saaxiibkii waan ka qaad haye maxaad jeceshiin in weydiiso walaalo halkee joogtiin horta waxa kale in weydiina hagee joogtiin maanta ceergaaban maanta joognaa isla galabta ayaan ka baxaynaa waxaan sii soconaa caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa annagoo sii marayna caasimada labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Burco waan u xiisay ugu salaam هاي أنا قبل وأنا حسني برعية هرقيسة بقى هر برعة ما أدينك ها ونجوج جري برعة الكي قاعد أسمع إركيسي سيدي ولا عليهم وين الوقت هذا
sida hee sidii de walaalaha iga heer koonfureedka walaalaheena Soomaaliyeed bay sheegaysaa waxaan ina weydiinaa maalin dhaweeyta waxaan maqlay dowladda Soomaaliland waxay soo saartay gabdhaha Soomaaliland inaysan guursan karin gabdho kale oo ama boosaaso ka yimaado ama xamar ka yimaado arrintaas ee aragtiin adinku والله waan ku faraxsanahay walaal ma yana kaaga jawaabay uu khalas fahmeenan ku yahay walaal ana kaaga jawaabay saamuna arku hay iga jawaab gawaad hibaaqi anu adiga ajnabi ma kugu sheegi karaa ajnabi kaamay anu walaalka ahay see idii kartaa ajnabi ragga laga hadlayo ee xeer loo soo saaray ee leeyahay hablaha Soomaaliland haday guursadaan waxay helayaan jinsiyadda uu ka soo jeedo oo Soomaaliland way ka baxayaan waxa weeye ajnabiga hadaba ay dhageyso anigana saaxiib mid baan ku darsanayaa hadii ba la oranayo hablaha inamada Soomaaliya ma guursan karaan anu waan ku faraxsanahay waana ku raacsanahay saaxiib sababta ugu faraxsanahay baan ku sheegayaa saaxiib laba wadano jaaranahay isku lacag ma nihin isku baasaboor ma nihin maxay marka ajnabi bay agteena ka marka ajnabiga kale iyagu way isku keen min xagga diin ahaanta mooyaane may wala anigu hadda maxaan ka ah Somaliland oo wada dalkayga anigu maxaan ka ah saarakiin ama ajnabi baan ka ah anigu Somaliland waan jeclahay waa dalkayga goonistaagayga waan ku faraxsanahay inaan Soomaaliya aan laba dal kala nahay laakiin kulay nin ajnabi ah iyo nin Soomaaliya doonaha noqday iima isugu kaymo maaha xeerkaasina wuxuu ahaa ajnabiga anaga ilaahayna ajnabi nooma geeyo waa Ethiopian cadaan Kenya waxa soo miidhan weeyaan marka anagu kuwa ku saaxiib Ethiopian ka baqaar baa Soomaali laakiin deegaanka Soomaali waaste may Ethiopian wax jira maaha anaga xeerkayga saas u ahaa walaalo maraan diidin oo ajnabi kuma faraxsan waxa ayna weydiin inaad carafkeedu ka galaano de kale in Soomaaliya guursatay naag Somaliland daradeedana weeyaan muqdisho kuwa ayaga taga fanaaniinta ayaa waay lahay laakiin ayadu waxay taagan tahay nin xamar ayadu laakiin waxay taagan tahay nin xamar ka yimaaday macni ajnabi iga yaa saas ay leedahay Soomahan maxaa tiri adigu waxa tiri yani xamar nin ka yimaaday kale laba wadan baan kala nahay hadaan nahay Soomaaliya iyo laba wadan baan kala nahay waana ajnabi de cididiisa diidade maya waa la ogyahay ina Somaliland inima diidani aniga ma fahanteen hay waxaan ku yiri anu hadda ma ajnabi baan ka ah anu galmudug baan ka soo jeedaa anu galmudug baa tahay Soomaalida Ethiopia tahay may waxaan ay anu galmudug baan ka soo jeedaa hay marka maxaa ka ah aniga agteeda ajnabi baad ka tahay كماهي هضبا سينا واحد ما واحد ربطان نو شيغيسا سومالي بان كودا hadlayna dhageysanino inaad sheeko qabyaalad amba sheeko wadada inagu soo furta ma yahayn laakiin inaynu ka wada hadalno farxadda maalintii kulmiye ahayd iyo waxaasay ahayd siyaasadda intaad inaga xidhaniyo wixii kala dhaliirnimadeena bartan ma ka hadalnaa ay ninka ninku soo kaxaystay hayawaay aniga hayawaan ka xiray sug waxa baan weydiinaya gabdhahe hayawaan ka xiray taas taa waan ka xiray waxa kale inuu weydiinaya labadiina ma waxa tihiin gabdho la qabo mise gabdho aan la qabin ma anagu wali calafkayga waan sugaynaa hablaan nahay labadiinaba ha okay ma sha Allah haye waan arkay inaa hablatiin yaad ka sugaysaan marka inamada Somaliland kaliya warnaga daa waxa sa weydiin gabdhaha weydiinaya gabdhaha ay dhasaan weydiin wala waxa jeceshay weydiin qurxo aya asna su'aashu doona bis madax taris aynu weydiin asna su'aashu horta burasho wanaagsan subax la mid walaalkii qaali soo dhaw magacaaga waa suldaanka dadka soo dhawan doono reebru waa kaasi walaale isagii oo caawo hindiya joogay Ilyas Egas Burco my brother qaali aad ba ku salaamaya maxaa tir walaal waan idin salaamaya labadiina barasho wanaagsan horta waa first time kan kulana malanaya isku xirkaas oo dhan waxa ka dambeeyay legend Somali doodin maxay ahayd maxaa ka sheekanaysaa
su'aalaha doonta gabdhaha weydii laakiin su'aalo xun ha weydiin marka su'aal baan haday idin weydiiyey cafwan su'aal baan haday idin weydiiyey hadeerna waxa weeye waan yara idin sheeka dhaafay maxay ahayd waxaan rabay inaan idin dhaho inta la su'aashaada oran waxaan doonayaa heesta Soomaaliya inaan ku yar dhufto maadaama calankii Soomaaliya xiran tahay ahlan wasahlan ku dhufo Soomaaliya toso istabaqabay isku tiirsaday tagdarane taageero weligiine waxa aan la oynaya iwade walaalintaas waa waanadu maxaad oomustay laakiin ma ahe wallahi waa gartay nafa ma dhib malahan marka su'aasha ma diga jawaabtaa laakiin su'aasha ma maqlayni soo daa ya hadda soo sii daa gabdhaha waxaan rabtay weydii anima ku maya dee waxay tiri meel bay socodsama ha waxaan idin soo dhex galay idinkoo idiin marayso waxay idiin maraysay ii sheeg waxaad tirahdeen iyo kala sinjiyo wax adigu baabka ay naga xidho wixii kala su'aalaad haysad anaga doonaysa inaad na weydiiso ama aan ka shaki saarno na weydii please inaga daa Soomaaliya warkeeda sorry horta waan soo wacaya dadkan anagana ma wicitaan ba ergaaba ma joogtiin kiinay iyo hibaaqay ha wala waxayna ma maanta ka baxaysiin ya halo ha maanta maqal ma jira adinka labadiin Somaliland xisbiyada ka jira isku xisbi miyaa taageertiin mise laba xisbi annaga xisbiyadeedu waa same way noo siman yihiin kii noo soo baxana waan ku faraxsanahay saddexdeeda xisbi waa same xisbigee taageertiin saddexdaba I love you ma waxaas wax jira ma ahan xisbiga taageertiin shay waranagu xisbiga waxa kamid ah laabtiye